xilli ay cirkaas ku sii shareeraysa xiisadda siyaasadeed u dhaxeeya madaxda Galmudug ayaa waxaa soo badanaya mooshinka iska soo horjeeda kuwaas oo xilka looga qaadayo madaxda Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Cadaado ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay mooshin ay ku saxiixan yihiin 30 xildhibaan kaasoo loogu dalbanayo in xilka looga qaado gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bishii September 2018 waxaan idinku yeernay in aan idin sheegno in uu na soo gaaray mooshin ka dhan ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Xareed Cali Xareed in ay xildhibaano gaaraya 30 xildhibaan ay ka soo gudbiyeen mooshin anigana mooshinkii sharci ahaantiisa markii aan fiiriyay aan ka qabtay aanana ogolaaday waxaan rabaa sida moshinku u qoran yahay inaan media ka hor akhriyo si aad u ogaataan adinkana sharci ahaantiisa iyo heerka uu leeg yahay xildhibaanadu waxay leeyihiin annagoo ah xildhibaanada Galmudug xubno ka mid ah oo ku saxiixan soo jeedinta xilka qaadista ah ee maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bishii 9aad 2018 waxaan soo jeedinaynaa mooshin xilka qaadis ah mudane Xareed Cali Xareed gudoomiye ku-xigeenka koowaad si waafaqsan habraaca tasuriga ah iyo xeer hoosaadka golaha baarlamaanka ee kalsooni kala noqday sida ku cad gudoomiye ku-xigeenka sida ku cad qodobka 9aad farqadiisa 2aad ee xeer hoosaadka ee golaha baarlamaanka Galmudug iyo qodobada 33 farqadiisa 1aad xarafka ja ee dastuurka dowlad goboleedka Galmudug eedaha ka dhanka ah mudane Xareed Cali Xareed xubinta jebinta dastuurka dowlad goboleedka Galmudug xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka 2 dhowris la'aan xeer hoosaadka iyo nidaamka golaha baarlamaanka Galmudug kadib markii uu baarlamaanka ku sheegay xubno aan la aqoonsanayn in ay yihiin baarlamaanka Galmudug inay kamid yihiin markii uu aqoonsaday qodobka 3aad burburinta sharafta golaha baarlamaanka Galmudug mooshinkan laga keenay Xareed Cali Xareed ayaa ku soo beegmaya xilli shalay qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug oo Cadaado ku shiray ay sheegeen in xilka ka qaadeen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Cabdirasaaq Cali Silfa TV-ga caalamiga Tusmo magaalada Cadaado.